haddii aad tahay qof hilow badan oo markasta u xiisa meel uu kasoo tagay ama kasoo guuray ama qof nolosha ay isku waayeen ama waxyaabo uu samayn jiray uu joojiyay laakiin hadda u xiisa waxaa taa qofka aan raadinayay soo fadhiiso muuqaalkan qofka saxda kala hadli lahaa adiga waay soo dhawo. السلام عليكم كسر دواد حلقة السجالات برنامج كيني ما أوجد إلى أوجاتد حلقة ما أنتم حميس كنا صار واحد ده هايو هلو أم حيسة ترى بدن نوستالجيا واحد ده إن أنا بنات هذه أنا هاي هل واحد تبعت ولنا هاي وإله نبسمه وحتى هاي إثبت بدل كقلبي دينا قلبي أنا مرة والمين وكذا ما أنا والمين أنا تستا يسرق رجس قلبي جاني يسرق يا مرة وحين تستا إنا وحسنا وحيالي هراء أو صوتني باستيجينا هذه هلا تدحرج أجرنا مرة هراء noloshana qayb ka ahayn hadii ay ahaan lahayd meel aan ka soo guurnay oo ayna ku nooleen hadda ama waxyaabo aan sameyn jirnay oo aan u deena sababo midee doonta noqoto waxa dhacday inaan u xiisno waxyaalahaas ama dadkaas oo aan rabno nolosheena inay dib ugu soo noqdaan oo aan u xiisno dareenkii ay heli jirnay markaas marka ugu horeyso midaas la garanno inaan wax u xiisid ama u hilowdid maahan cilad waa bini'aadanimo waa qayb ka mid ah waa wax kugu programsan insaan ahaan oo aad la dhalatay labo waxyaabaha u xiisisid ma ahan qofka ama meesha ama wixii aad sameyn jirtay waxa u xiiseysa dareenka ay heli jirtay markii waxaas aad sameynaysay ama qofkaas aad la joogtay oo noloshaada qaybta ka ahay ama meeshaas aad ku nooleed waxa u xiiseeyna waa dareenka ee ma ahan wixii laftirkooda waxaa arkaysaa marmarka qaarkood inaad dib u fiirisid noloshaada aad tabtid dad ka maqan hadda as dhihi lahayd saaxiib hebel hadduu noloshaada ku jir lahay ama qof hebel aad sii heesan lahayd ama meel heblaaya aad joog lahayd ama wixii aad sameyn jirtay haddaad dib ugu laaban lahayd waxaasiti noloshaada sidan waa ka macaanaan badnaan lahayd way ka dhanaan badnaan lahayd way ka dhadhan fiicnaan lahayd laakiin markii waxaan aweynaysay ama qofka noloshaada ka saaraysay ama meesha aad ka tagaysay ama caadadan iska jiraysay waxaa jira sababa u jartay muddo markay kasoo wareegto waxyaa kadib waxaa kugu soo dhuumanayo hilow ama xiiso kaasoo kaaga dhigaya wax muhiim ah inaad weyso oo qurux badnaay oo ay tahay inaad dib usoo ceshitid si degdega waxaad dareemaysaa markaas inaad dib usoo xasuusanayso waqtiyada quruxda badnaay qosolkii farxaddii sheekada saa iskula wadaagayseen dhibka saa isaga deji jirteen qaabka isku fahmayseen wada hadalkiini wada cunteyntiini qofkaas waxaa la wixii wanaag oo ku hayay aad dib ugu soo noqonayo qosala maskaxda ka baxaysa iyo waqti quruxda badnaay isla marka waxaa la tirtirayaa wax alaala wixii xumaana iyo xanuun ah iyo rafaada idin dhex mara qofkaasiti hilowga markasta wuxuu doortaa waqtiyada macaanay si uu kuugu tuso adiga ugu dhaho waxaan dhana heli jirtay intay kaa jiraan hadda waxaana jiro sababo sax ah aad ku weysay waxaasiti aad joojisay ama qofkaas aad ka tagtay ama meesha aad u xiisaysid waxyaabihii ugu tagtaa meesha yaalo oo saxa weli waxyaabaha beenta ay naga dhaadhicin karto nostalgiyada ama hilowga marka aan dareemayna waxay tahay inaan iska dhaadhicino maadaama u xiiso waxaan inay tahay qalad aan sameeyey inaan ka tago ama aan waayo may wixii aad samaysay dib ugu fikir waxaa ogaanaysaa inay sax ahaayeen inaa waxaas qofkaas aad weysid in meeshaas aad ka dhaqaajisid in caadadaas aad joojisid wax saxanay ahaayeen inaa u xiisa macnaheeda maaha marka inaa qaldan yahay go-aankaaga ee keliya waxaa u xiisay dareenka ay haysan jirta markaas laba inaa isdhahno nolosha aad u micid marka qofkaas ay haysatay wax ka wanaagsana ma lahayn nolosha wax ka macaan ma lahayn markii madhablaay aad joogtay wax ka macaan ma lahayn markii waxaas aad sameynaysay may nolosha markasta way qaraar tahay way xun tahay waa macdahay wax isku jiro waay laakiin nostalgiyada waxay sameynaysaa filter inta saarto wax alaal wixii xumaa wixii xanuun ahay ee meesha ka bixiso waxay ku tusaysaa waqtiyada macaana keliya ay ku leedahay xilligan haddaad dib u noolaaleed ka waran yaa dib kugu celiya 2014 yaa dib kugu soo celiya qofkaas yaa dib kugu celiya marka waxaa haysa jirtay may nolosha markasta way xumeyd way qaraareed keliya adaa u jeedin sababta meeshaas ugu soo tagtaa meesha ku jirto waxaa meesha ku jirta sababta meeshaas ugu soo dhaqaajisay hadda haddii aad ka fikirta xilliga dugsileeda ay ahayd waxaa xasuusanaysaa nolol qurux badan asxaabtii aad lahayd iyo baashaalkii iyo saa u yareed iyo saa dambi la-aan u ahayd saa meel kasta ugu welweli jirtay carruurnimadaadii laakiin waxaa iloobaysaa jugti kugu soo dhacday xanuunkii beenta lagaa sheegi jiray macalinka lagu nabi jiray usha kugu dhacday waalidkaasay ku canaani jireen ciilka aad dareemaysay wixii dhanaa kaa baxaya keliya nostalgia waxay kutusaysaa wixii macaanaa ay haysa jirta markaas waxyaabaha beenta inaga dhaadhicisa nostalgiyada waxay tahay inaan aamino inaan dib u laaban karno wixii aan sixi karno maadaama qofkaas aa waayay hadda noloshiisa dib ugu noqon karaa waxaa la wixii ka qaldanaa waa sixi karaa camal waxaa is dhehaysaa qofkaas wax buu bartay wuu inaaday qaladkiisa wuu fahmay hadda wuu isa sixi doonaa mar dambe waxaas dhib uu geysanayo wuu isbedeli karaa waa toosi karaa no halka qaab waxaas ugu socon kartaa waxay tahay inaad hor u socotid mar haddaa dhaha gadaal u jeesanaa waa fiirinaa ama waa xali karaa iyo waxaa ka bedeli karana tookadan no second chances waxaan waa soo bartay cashirka waan soo qaadatay fasalkaas dib ugu noqonin haddii ay ilowda cashirka taasoo markasta dhacdo cashirka haddii ay ilowday meel fadhiiso dib u muraajace ma ahan inaa sana dugsiyeedka dib ugu laabanaysa adhaysa macallimiinta dib halagu soo kariyay cashirka halii baro buugaagta la soo bado may kalaaska ku celin mar kaleeto waa soo qaadatay cashirka haddii ay ilowday dib u muraajace ama haddii aad rabay danka lahayn ka soco gadaal dhaha u jeesani
okay hilowga maadaama uu yahay qayb kamid ah nolosha ama dareenka aleenaha uu yahay qaabkee ula macaamili karnaa marka miska in karnaa oo ma ka soconaa mise dhakhtaraa tagnaa waxaan ugu sameeyaa qaliin sa isaga saarno kiniinyaal ma u cabnaa qaabkee loola macaamilaa hilowga okay marka ugu horeysa waxaa aqoonsataa dareenkaas inaa haysatid ha inkirin ha is adkeenin waxaa dhahdaa hebel aa u xiisay waa dareemooya waan u jeedaa yes xiisaha waa dareemooya waxaase u hiloobay meel heblaayo aa iga heesaa aada ugu xiisooya yes waxaa u xiisay waagii saas ahaan jiray waxaas aan samayn jiray noocaas nolosha noocaas ku jiray ha inkirin adi dareenka marka hore ictiraaf sii labo xaqiiqda markasta ku taagnaa ha iloobin waxyaabaha qaarkood sida qofkaas markii aa weynaysa maxaa u weysay sababaha u weys maxay ahaayeen muxuu ka haleeyey siduu ku dhaawacay maxaa uga baahneed oo ka weysay qaab qof noocu ahaa qofkaas meeshaas maxaa ugu soo tagtay nolol sun may ahayd maxaa ka haleysnaay maxaa ka qaldanay caadada aad joojisay maxaa ka haleysnaay maxay noloshaad kusoo kordhinaysay maxay khasaaro ku ahayd xaqiiqadaas dhan ha iloobin markasta waa hilmaami kartaa laakiin ku istaag mar kale dib isku xasuusi markasta hilow uu ku qabtaa isdhexdiisa qofka dib ugu laabo ama noloshaas dib ugu noqo dib isku celi waxaa dhahdaa qofkaas maxaa marka hore uga tagay reasonska maxay ahaayeen xaqiiqda meesha ma taalo qofkaas qofku ahay muu iska bedelay maya 9% waxaa dhacday qofkaas inuu isbedelin oo sidiis yahay marka adriska ha qaadana uu isbedeli karaa wuxuu noqon karaa qof wax fahmato kadan waxba difference noqon karo no risk meesha tagnaw hore ugu soco that's it saddex waxaa kaloo samayn kartaa inaad noqotid qof mashquul badan oo wax soo saar badan hilowga badana wuxuu aad noogu faa'iidaystaa waqtiyada faraqa aan ahay waqtiyada aynan waxba camal qabanin wax aynan haynin wuxuu ku leeyahay saacadaha camal waxaa la qaadan kartay hebel ama meel heblaaya joogi kartay ama wax hebel aad samayn kartay adoo og waxa aad samaynaysid inay wax xun yihiin noloshaada dhibaato u keenayaan aan sidee haddana waqtigan ugu faa'iidaysan lahaa firaaqa waxaas iska fiirsan lahay waxaas samayn lahay hebel la socon lahay ama la sheekaysan lahay waana ogtahay waxa inuu ku xun yahay ama qofkan uu ku xun yahay marka ismashquuli productive noqo noloshaada ha ogolaan janis oo qofkaasiti ama meeshaas kasoo tagtay ama waxaas dabeecadda aa goysa xun inaad dib ugu xiistid ha isiin janiskaas markasta ku mashquul wax dantaada wax kaloo ka caawin karaa waxay tahay dareenka maadaama dareen xoogan oo cabur badan leh inaad ka hadishid inaad qof saaxiib u tagtaa dhahdid aniga hebel u xiisooya ama heblaaya u xiisay saa insaan dareemaya maxaa sameeyaa inaad kala hadishid markaste ka hadishid waa la falanqeynaa waxaa imaanaysa xaqiiqooyin waxyaaba badan laga hadlaa adiga qaabka aqliga ku fikiraysid ma ahna aqli fadhiya marka hilowga kugu jiro waa aqli filtraysan oo quruxda bas ku tusaaya iyo qofkaas waxyaabaha ugu xiisaysid laakiin qofka saaxiibka markaa kala hadlaysa wuxuu ogyahay qofka xumaantiisa iyo samaantiisa everything oo ilaa kaa saara wuxuu leeyahay isaan waay dan kugu jirta qofkaas inaad ku laabatid ama caadadaas dib u samaysad hadda kor waxaasaa kala kulantay dhibkaasaa kaaga imaaday wuu ku jakareynaya reality waa ku saaraya laakiin haddii kaligaa iska qarsatay inuu caburtaa laga yaabaa inaa go-aan qaldan qaadadka laga yaabaa ka hadal asxaab kala hadal family kala hadal qof kasta heli kartid haddii aysan jirin qof aa kala hadli kartid waxaas gooniga u xiisaysay ama qof wax privacy ay yihiin naftaada kala hadal waxaa samaysaa journaling meel fadhiiso mobilka ku qoro waxaa ku qorata qalin iyo warqad naftaada kala hadal qofkaaga mustaqbalka aan ku doonta kala hadal adiga aadii doonta 5 bil kadib marka waxa aqriya ama 2 sano kadib waxa fahmi doon waa nafis meel ku qor okay intaas maadaama inta waxyaabaha la rabay inaad samaysid aan kuu sheega marka waxyaabaha la rabay inaad samaysid oo ah qaladka koo inaad dib u xiriirisid ama dib ugu laabatid asxaab toxic ahay ama relationship toxic ka baxday noloshaada ka saartay ama meel aa usoo tagtay xumaan ee leedahay ama dhibaato kala kulmi jirtay inaad dib ugu noqotay aad dib u xiriirinaya maxay dhibaysaa wada hadal yariis ah inaan at least fiiriyo qaabkay noqonayaan conversation aad iska bilaawno iska sheekaysano dan conversation ka dhaliyo noloshii dib u soo celin amal beebena ku bilaab amal may ha ku laabani hadda ku sheegay ha ku laabani ka fadhiiso baashaas ka hadal qofka la hadal ku kalsoon tahay naftaada kala hadal ha ku degdegin dibna u xiriirina qof toxic noloshaada ka saartay ama meel ka soo tagtay ilaahay ka badbaadiyay ama wax xun ay joojisay dib ugu noqonin si kasta u macaanta noloshaas go'aan degdeg ah ha qaadanin adoo ka fikirin hilowga iyuusan ku sirin markasta hilow aad dareentid ha inkirin meel fadhiis waxaa dhahda waxaan hilow waaye waa u xiisooya yes maxaa ka qaban karaa aqli saliima ku fikir dareenaysu ka qaadi badanaa dareen noocaas markuu ugu dhashta anaga god isku ridnoo dhahno waxa u xiisoo sababta waxay tahay qofkan qof u xiisa waaye qof saxa waaye dareemada qofkan bas isii karo qof kale ma ka helayay balaabalaa inaad iska dhaadhicisid waxaa lahaa hilow waa sida dabeysha mar hadduu kaco waa adag tahay in la joojiyo marka bahasha intay tartiibsan u wareegsanayso dami kula fogaani hadday duufaan isku bedesho
adiga ku qaadaysaa qof kastay qaadaysaa dhibaato weyn ka imaanayso meesha ka imaato ogtahay ku laabanay soo haddii aad kusoo gabagabeeyo haddii waxa noloshaada ka maqan ama aweysay u xiistid ma aan macnaheeda inaad shalaynaysid oo waxaas wax qaldanaynaha inaad ka tagtid no go-aankaas waa ku saxnayd dantaada ku jirtay waa ogtahay waqtiga saliimka aad tahay waa garan kartaa waxaas inay ahaayeen wax saxan inaad samaysid laakiin hilow waa ku indhatiraya marka macnaheeda maaha inaad u xiistay inaad waxaas inaa haysatid ay tahay waa u xiisi kartaa qof waa jeclaan kartaa laakiin meeshaas ka joog ogow inuu qofkaaga ahayn ogow meeshaas inaysan kugu habboonayn ogow waxaas aad samaynaysa inay wax wanaagsan ahayn noloshaada ku dhibaayeen sababta u joojisay aad jirto sababta u joojisay jirto ayaas bayal isku sheegin sababta waxaas ugu xiisaysid waxay tahay qofkan waxaas la soo marteen nolol macaan iyo qaraar intaba mala inkiraay mala dhahayo qofkan qofku xumeeyay waaye gaal waaye saan waaye ay waaye uu jarjaraay no qof waxaa waaye maalinkaa qoslinaaye maalin ku dharjinaaye maalinkaa farxinaaye maalinka ku murugsiinaaye maalinkaa oysinaaye nolol dhan aad la soo marteen markaste aa xasuusatid nolosha macaankeeda sidoo kale xasuuso wixii xumaa ka soo tagtay haysan tirin and yes waa isla ognahay qofka inaad sii daysid ama aad ka tagtid noloshiisa aad ka baxdid ma tirtirayso jacaylkii iyo wanaagii meesha yaalay laakiin taas aysan kugu sirin inaad dib ugu laabatid nolol qaraar ah ka soo baxday mustaqbalkaaga ka weyn iyo meesha u socotid iyo wax ku sugaayo okay hilowga yuusan ku gaadin waa u xiisi kartaa laakiin ha ku dhaqaaqin go-aan qaldan okay intaas isla garana maanta waxaan oo dhamaantay xalqadeena sagaalaad ee barnaamijkeeni ma ogid ilaa ogaatid aan ku ogaano waxyaaba inaan hore u ogeen markasta asii noolaana maalin ka dambeysa cashara sii barana casharkaas isla ogaanina adiga hilowga maxaa ka aaminsan tahay ma tahay qof wax badan u xiiso noloshiisa hore qaabkees oo la tacaamusha marka hilow aad darintid commentiga hoose noogu soo sheeg haddii ay jiraan mawduucii aragtid aan kasoo hadlo commentiga kusoo qor si aan jimcooyinka soo socdo iskula qaadano aan iskula falanqeyno thank you very much daawashada ku maasan tahay like share comment subscribe ku sheega intaasiti tan iyo muuqaalka xiga ku kulmi doono bye bye It's over, it's over.